golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xiray muddo 7 cisho ah tani markay isku dhaceen gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe iyo xubno ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka. Goluhu waxay aadeen qorista mooshin ka dhan ah Sheekh Aadan Madoobe. Sheekh Aadan Madoobe isaga waxa uu go'aansaday inuusan furin guud ahaan golaha baarlamaanka. Waxa uu leeyahay sabab sharci ah oo ku xirnaan karo kumana jirto haddii uu gudoomiyaha kursiga u baqaayo inuu baarlamaanka furi diido. xubnaha mooshinka wado oo ka badan 100 xubnood waxa ay ka fakarayaan inay gooni isu yimaadaan kadibna ay doortaan qofka u da'da weyn kadibna ay ku dhawaaqaan xilka qaadida Sheekh Aadan Madoobe. haddii uu diido inuu baarlamaanku furi waayo 4 bilood ee loogu talagalay kala fadhigan wax shaqo ah lama qabanin. in ka badan 20 maalmood waxaa qaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo jadwal safar lahaa maadaama laga rabay inuu isaga uu furo kala fadhiga. dhowr 20 cisho oo kala waxaa qaadatay fasaxii ciida iyo cimrada, haddana waxaa taagan buuqaan. sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxay inoo xaqiijiyeen in Sheekh Aadan Madoobe inuu ka fakarayo inuu ku dhawaaqo mar kale inuu baarlamaanku xiraayo xajka iyo ciida soo socoto si uu u damiyo mooshinka. sida uu dhigayo qodobka 17aad farqadiisa 1aad xarafka D ee dastuurka Soomaaliya, mid ka mid ah sababaha uu gudoomiyaha golaha shacabka xilka ku weyn karo waxaa ka mid ah jebinta xorriyadda baarlamaanka. xirnaanshaha baarlamaanka ee xilligan waxaa lagu jebiyay dastuurkii dalka iyo xorriyadda golaha. sidoo kale waxaa xildhibaanada ka soo horjeeday Sheekh Aadan Madoobe waxay helayaan qayb cusub oo ay ku bixin karaan ama ay ku sii xoojin karaan dagaalkooda. dagaalka ku socda Sheekh Aadan Madoobe waxaa asal u ah shaqo ay fila Soomaaliya u dirtay oo ah in baarlamaanka laga eriyo xildhibaan Cabdullaahi Xaashi Abiib oo si weyn u eedeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. laakiin xildhibaanada mucaarad iyo muxaafid waxay si weyn uga soo horjeesteen tilaabadaas. Sheekh Aadan Madoobe oo xilli adag ku jira kana baqaa in haddii uu baarlamaanka furo xilka in laga qaado ayaa dhinaca kale weli wax taageero siyaasadeed ah ka helin fila Soomaaliya oo iyada ay gelisay dagaalkan. waxaa jiro tiro xildhibaano ah oo Sheekh Aadan Madoobe taabaxsan oo riixaya aragti ah inuu ka laabto xasaanada ka cayuubinta xildhibaan Cabdullaahi Xaashi Abiib oo si xaaladda baarlamaanka loo dejiyo. mana cadda inuu Sheekh Aadan Madoobe taasi aqbali doono iyo in kale. inuu baarlamaanka sii xirnaado ayaa noqon doonta sharci ku tumasho weyn oo uu sameynayo gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe xilli ay dalka ay ka taagan yihiin xaalado amni, kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale oo u baahan inay xildhibaanada baarlamaanka ay wax ka yiraahdaan. haddaba sidee aragtaa adiga?